هذا أخياري جناليسك أنا كلا عين تشوي عاتية ميديا فضلا هدي أنا لجوكت النسي شرقرية سي أصحاب كلا إنه قصة بيرتو وإنه كم هسنتين لجوجينا and جناليسك أنا قد هانيسنا وعين تشوي عاتية ميديا سيدا سلم ده والك أما دربي أنا كله إن هي أرضاجنا فيسبوك أو عاتية ميديا فضلا سوف لو قرية waxaan ku qaadaa dhigi doonaa klibkeena maanta ay bishu tahay 18 bisha May 2022 dhowr qodob ayaanu diiradda ku saari doonaa aanu ku bilaawno qodobkeena koowaad dabcan waxaan ognahay 15 bishan maalinimadii axadda isbuucan inay dhacday doorasho adoo la ku ron yahay in badan ka soo dib martay xilligii loogu talagalay taasoo qaadatay abaabulkeeda sanad iyo dhowr bilood ayaa waxa ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo kol hore soo noqday madaxweynaha dalka hadaba waxaanu qaada dhigi doonaa waxyaalihii ka saaciday inuu mar labaad u soo laabto iyadoo aan loo baran sidaas la mid ah farmaajo in badan la saadaalinay asxaabtiisa wax badan la saadaalinay sababta hadwa la ku roon yahay ay doontiisa ay u caarisay aan ku bilaawno حسن الشيخ وحيالها ساعدة وحا كمدا كو قضبادي فرماجة لغا فيليو اوسان سامين وانو ديهي كرنو هدوال لكو روين فرماجة او كو ادكيستي او يري انو اسكوركا ايا اللي انان مسوق ماسوق سامين اما لعاقتا هدوال لكو روين بانجي قتالا اللوغو تلاقالي ان لغو مارك هدوال لكو روين لوغا ديغو قنوين عيدان كاه يو قنوين يو مشارات كاه هدوال لكو روين هنمانكا شقالها انو سان ودورشكو قلين dabcan in badan oo ku soo celin jiray inuu musuqmaasuq sameeyeen ayuu in badan wuxuu maaragtaa guntiga dhishiisa ka dhigay inuu go'aankiisa meel mariyo isagoo dabcan waxyaalo farsamooyin kala adeegsanayo tusaale ahaan farsamooyinku adeegsanay waxa kamid ahayd in xildhibaanada qaarkood loo sheegay laga soo qaaday akoonadooda xisaabaadkooda la soo gudbiyay soo qoreen madaxtooyada la geeyay iyagoo loo sheegay in $150,000 loogu soo shubay xisaabaadkooda akoonadooda sidaana ay codka ku siiyaan farmaajo ilaa iyo subaxa horena la siin doono $150,000 ay u soo dhici doonto sidaas la mid ah markay doortaan kadib farmaajo $150,000 lacag kale oo inta la mid ah oo $150,000 oo kala ah iyo haduu alla ku roon yahay gawaarida kuwa ugu culus oo de maaragta xagga hore uga jira bullet proofka loo yaqaano de aan rasaasta karin in maaragta loo iibin doono kuwa nuucooda kuwa ugu qaalisan oo xildhibaan walba la siin doono dabcan asagu wuxuu uga gol lahaa xariiftankaas iyo haduu farsamooyinkaas wuxuu uga gol lahaa inuu uga siibto markay codka siiyaan uu yiraahdo mushaaraadkiina xaq u leeyihiin soo xaadira haduu alla ku roon yahay waxyaalo kale dabcan $150,000 ma hayo inuu yiraahdo ay maaragta haduu alla ku roon talagalkiisu ay ahayd isagoo xataa loo dhiibay rag badan oo asxaabtiisa hoose loo dhiibay xataa hoolka ay la tageen waxyaalo badan oo lacag noocaas haddana waxa dhacday in nimanka la yiraahdo ololihiisii farmaajo inuu maartay ragii koonfur galbeed u badneed dabcan maarta mar walba halka codka ugu badan uu jiro ummadda Soomaaliyeed ama madaxtinimada go'aamisaba ayaa waxa dhacday inay marka ay ka xanaaqaan dabcan de subax hore ayaa lagu bilaamay lacagta subaxnimadii hore waxaanu ognahay doorashaduna inay bilaatay gelin dambe wixii loo gaaray 8 saac ama 2 duhurnimo halka markii la joogo waxa xanaaqay oo de dabcan maaragta qaadan waa u qaatay arinta xildhibaanadii koonfur galbeed kuwii haduu alla ku roon yahay waqooyiga dirta waqooyi kuwa haduu la ku soo xildhibaanadii hawi u soo haystay in badan oo kamid ah ayaa arinta maaragta waxay maaragta ka xanaaqay oo qaadan waa u qaatay isaguna dabcan farsamo ayuu ka watay wuxuu diidanaa iskoorka musuqmaasuq ku gali maayo oo maaragta haduu alla gunooyinka ciidanka iyo haduu alla ku roon yahay masaariifta ciidanka iyo mushaaraadka haduu alla ku roon rayidka ama shaqaalaha rayidka inuu kuma galayo inay u meel marto ayuu maaragta ayuu go'aankeeda qaatay dabcan taana miraheedu uu guran doona waxaan ognahay mar walba narrative-ka mar walba wuxuu ku qabsadaa farmaajo in uusan musuqmaasuq sameeynin timaanta duu sameyn lahaana waxa ka jabi lahaa haduu alla ku roon ama beenoobi lahaydba hadalka ama slogan-ka anigu musuqmaasuq ma sameeyo taa ayaa soo gabagaboobi lahayd hase ahaatee wuxuu huray intii uu slogan-kaas ay ololahaas uu ka baabi lahaa in xafiiska baneeyo
isagoo 150,000 dollar inuu bixiyo oo 200 xildhibaan siiya ay uga fileed ama 180 xildhibaan ama 150,000 dollar kadibna de asaguna halka uu ku sharaf beeri lahaa waxyaalaha weeyaan waxyaalaha maaragta farmaajo dhankiisa saaciidi waayay sameeyay oo ninka la yiraahdo Xasan Sheekhna ay saaciday sidaas la mid ah madaxweyne Xasan Sheekh ee maanta dabcan talada dalka hayana waxyaabaha saaciday waxa kamid ah inuu asagu naftirkiisa musuqmaasuq badan bixiyay oo cid walba og tahay haduu alla ku roon yahay danni iyo haduu alla ku roon ugu shubay waxyaalahaas ayaa maaragta doorashooyinkii hareynayay oo ah ninna inuu dabcan carrada madaxa ka ilaashaday oo sharaftiisa iyo sharafta dadka Soomaaliyeed ba ilaaliyay kuwa kalena ay ku heleen musuqmaasuq noocaas waxa kilibkeena qaybtan labaad aan ku qaadanayna hadii alla idmo ama qodobkeena labaadba oo muhiim ah in shalay ay kulmeen ay yeesheen shir albaabada u xiran yihiin Siciid Danni iyo Xasan Sheekh Siciid Danni xanaaqsan baa u soo galay oo yiri miiska u garaacay oo yiri waa in maarta haduu alla ku roon la siiyaa ra'iisul wasaarenimada Puntland qof ka soo jeeda markaad maqasho waa maarta dabcan ma jarteen oo dhan ma Maxamuud Saleebaan iyadoo naftirkeeda hoos u soo dhaco ah in isaga ruuxdiisa la siiyo hadii ay noqon weysana in maarta haduu alla ku roon yahay Xasan Abgaalow ninka la yiraahdo wasiirka maaliyadda ugu magacaaban ama midkii ninka wasiirka arrimaha gudaha ugu magacaaban dhaman cad la yiraahdo ka soo jeeda meesha la yiraahdo Gaalkacyo in loo siiyo haduu alla ku roon jagada ama xilka ra'iisul wasaarenimo loo dhiibo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh wuxuu yiri anigu dabcan waxaan ku qaabilay waxay ahayd inaad isiiso talo inaad maaragta ii caga jugleyso miiska ii garaacdo oo ii manna sheegato ma ahayn waxaadna ogaataa buu yiri anigu xildhibaanada codka isiiyay waa kuwa maaragta hawiye waa kuwa daarood waa kuwa digli mirif waa kuwa direed waa kuwa beesha shanaad anigu waxaan ku soo bixiyay cod iskoora oo 214 xubnood kuma soo bixin buu yiri 68 xubnood oo kuwaaga hadii xataa laga jaro 68 xubnood kuwa adigu aad leedahay anigu waa soo bixi lahaa kadib maaragta haduu la ku taas ogow ayuu ku biicab ayuu yiri Xasan Sheekh oo aad iyo aad arinta maaragta sharaf dhac u dareemay in Xasan ninkan maaragta haduu alla ku roon yahay danni la yiraahdo dabcan maaragta oo miiska gacanta u garaacso madaxweynaha qaranka ah waxyaalaha kale oo maaragta haduu alla ku roon yahay iyaduna ay xusida mudan waxa kamid ah in shalay lagu farmaajo ku casuumay Xasan Sheekh madaxtooyada uu yiri madaxtooyada ku soo dhawow madaxtooyo u qalanta madaxtooyo ku soo dhawow adigu ugu soo dhaweyn 2017 noocaan ahayd ku soo dhawow madaxtooyo qurxoon oo qalabaysan oo nidaamsan ku soo dhawow qalabkii ee haduu alla ku roon yahay nidaamkii haykalkii dawladnimo oo adigu ugu wareejisay dabcan cid walba waa og tahay madaxweyne walba yimaada meesha wax joogan meel ka sareysa inuu wax geeyo hase ahaatee Xasan waxa intaan ugu sugan taariikh madaxtooyada shaqaalaha ka shaqeeyo mushakala oo ummadda Soomaaliyeed ka kooban asaguna uu ka tagay ciidan maaragta abgaal u badan shaqaale abgaal u badan nidaam abgaal u badan cid walba waa og tahay hase ahaatee maanta wuxuu ku soo dhawaanayaa haduu alla ku roon yahay nidaamkaas waxaan rajaynayaa inuusan maaragta shaqaalaha iyo ciidanka iyo haduu alla ku roon haykalka dawladnimo oo san ku maaragta ku jaangoon ama halbeeg uga dhigin qabiilka asagoo ka soo jeeday abgaal dabcan ummadda Soomaaliyeed wax siiya maaragta u soo bandhigo uma uu qaybiyaba arintaana dabcan waa arin laga rajeynayo maadaama mar labaad uu soo laabtay doorkii labaad intaas ayaa laga rajeynayaa inkastoo ninkan waxa la yiraahdo maaragta bahalna cayriin ma daayo ninna caadadii ma daayo taa madaxweynaha ugu maahmayno waxaan rajeynaynaa in uu madaxweynuhu wax ka baran doono qaladaadkii tirabeelka ahaa muddadii uu dalka hogaaminayay maaragta haduu alla ku rooyo oo ku kacay akhyaaray kilibkeena intaas aan ku soo gabagabaynaynaa fadlan si share gareeyo qolalka u qaybiya wamaadsantiin